بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعندا وضيال سود وهذا هبي وناكشن بعدين سود وين يا دمانتين صاحب هذا أنو هل كان صاحب كان هاي وإنكو سود وين يا برتا دلجة ميديا عندنا نقول هذا يوتيوب كي فيسبوك جاي انتبه هبي وناسنا يرمل كله هذا كان لا هاي كسود وهذا تبنتي نتوسك هذا وأنا عاو حلينا وكلانو بلانثنين sida ciwaanka idin kaga muuqataba waxaan falanqeyn doonaa calaamadaha cusub ee lagu garto nooca cusub ee coronavirus ama COVID-19 oo dhawaanta soo gaaray qaaradda Afrika sidoo kalena dalka Soomaaliya iyo Kenya qaybo badan oo kamid ah laga dareemayo calaamadaha cusub ee lagu garan karo ayaan idin wadaagi doonaa caawa xogta aan ka hayo adiyaalaha wadada golaado fadlan muuqaalka si share gare si uu gaaro asxaabta kale aad baan kaga madcelinaa waqtiga daawade waxaan sidoo kale falanqeyn doonaa xildhibaanada mucaaradka dalka Soomaaliya oo iyagana maxaa la yiraahdaa maanta rajadoodii ay ka qabeen in ay ka qayb qaataan shirarka baarlamaanka ay soo yaraanayso sababtu waa maxay xog ayaan idin wadaagi doonaa hadii Allah wadada fadlan muuqaalka si share gare oo asxaabta kale si gaarsii aad baad u mahadsan tahay soo dhawaada dhamaantiin هيك داوديال أد بني سودو بنيا مقردة سودو إن أدير أد بدو ما سنتها هي سودو فضلا سي شير جري مقال كأصحابك التي جارسية وهبين كله وأنو عاوا وهذا كل منه إنه وصل فلانقين دونا حالها وجود بيه أرمها سياسة دلك الصومالية دين نقول هذه يشدر كله على مدى عصب لو قرن كرا نوع عصب كورونا فيروس كنوع عصب كورونا فيروس كوحو هراء وقبل لو دلك سو أفريقيا دلك سو أفريقيا إنجليز ك طبعا علامات عصب ويولي هاي وان كيرا دون كوي هراء عابق هراء لو يقاني كوفيد 19 لو يقاني يرا كدون ومركاسي أنا هين علاماتي هراء لو يقاني waxaan idin wadaagi doonaa calaamadahaas cusub iyo maxaa la yiraahdaa waxa ay yihiin iyo sida loo garan karo haddii aad isku aragtidna maxaa tala ah oo ay dhaqaatiirtu maxay tala ka bixiyeen ayaan idin wadaagi doonaa haddii Allah awood leh ogolaado soo dhawaada dhamaantiin fadlan muuqaalka si share gareey asxaabta kale si gaarsiiya fikradihiina waan soo dhaweynayaa واتهاي هذا أمة سنتي دبانتين نوع عصب عابقة COVID-19 طبعا هو نوع سيد الشيء كذا شدة كقاطي طلع الذي لصوص صاري قيب كمدا على مديه سواء كدوينهن نوع هراء اللي يقاني وحيوجد دوينهن سيابة كالدون ما قاب كالدون يوجد دوينهن وهرين نوع عصب مرهن نف قبض وحلو يقانو أضد كنف تكون مدقيسو سيد كي هراء لو يقاني سيد دقة sidoo kale noocan cusub waxa markaasi la sheegaa inuu leeyahay inuusan lahayn qandho daran oo qofka qabanaysa oo xumad badan keeni karta inuusan lahayn sidoo kale waxa markaas uusan lahayn ama uusan soo hore ka soo radinin dadka oo asiibo noocan cusubi waxa la sheegaa ama ay waxa dhaqaatiirtu waxay sheegeen calaamadaha cusub lagu garan karo noocan cusub ee COVID-19 inay tahay كو دال لابو مرق حنون سدح لفا حنون لفا كو حنونة عنتدا ما أبيتك وكا حرمة وعنتدا قادن كري ويسو سيدو كله لبو يولي هاي وحنا ولي هاي أورك أو قفك كتجا يدرنك أو كتجا وحا علامة هورك كدوية هاي كاني وحا قفك دريمة يا دال لفا حنون مرقها قفك حنونة يلا بلبو علامة العصب علامات سيلو قرن كرا نوع عصب أو طبعا قفك وغشكين كرو إنه هاي أما ملاريا ama cudurro kale oo kuwa fudud laakiin waxa uu yahay coronavirus kan nooca cusub ee hadda qaaradda Afrika qayb kamid ah ku soo biiray dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa aad looga dareemaya qaaradda marka bariga Afrika la yiraahdo sidoo kale dalalka Ingiriiska iyo South Africa ayaa hore looga dareemay oo hore uga bilowday noocan cusub waxa xusid mudan nooca cusub ee coronavirus ka dartiis dalkan Kenya inuu galay waxa la yiraahdo bandu cusub ama lockdown cusub oo markaasi laga mamnuucay socodka gobolada qaarkood dadka goboladan jooga inay gobolo kale u gudbaan laga mamnuucay waxa sidoo kale xusid mudan in maxaa la yiraahdaa bandowgii hore ee 10ka habeenimo ama 4 saac bilaaban jiray la soo dhaweeyay sabab la xiriira noocan cusub ee coronavirus ama COVID-19 ka sidoo kale dalka Soomaaliya ayaa isaguna aad uga jira oo xilligan waxa ay soo tabinaysaa ay ku baaqayaan lamaha caafimaadka ka shaqeeya gaar ahaan wasaaradda ama hay'adda caafimaadka u qaabsan adduunka WHO in uu saameyn fara badan ku yeeshay marka la eego heerka uu markaasi uu gaaray kororkiisa
waxaa leeyahay sidoo kale dadka uu markaasi haleelo waxa ugu badan dadka da'da dhexe ah oo ma ahan dadka da'da weyn isagu uma badna noocan cusub waxa uu ku badan yahay dadka da'da dhexe ah ee 20-miyada ilaa 30-miyada ah sidoo kale waxaa xusid mudan in caabuqan cusub ismarka uusan u badnayn qofka inuu ku keeno waxa loo yaqaan neef qabad ama oxygenka qofka oo ka yiraahda waan rajeynaynaa wax badan ka faa'iideen wararkan aan idin wadaagayaa wax aan soo baaray ama xaqiiqada baaritaan ku sameeyay waana muhiim inaad ogaatid waxa kugu dhici kara ama kugu imaan kara haddii aadan ka taxadirin waa hagaag waxaan sidoo kale markaan u gudbi doonaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta mucaaradka oo rajadoodii ay ka qabeen isurtaagida ajendaha lagu doodi lahaa caabuqa COVID-19 oo soo yaraanaysa ila wareedyo kala duwan oo la xiriiraya waxa ay xaqiijiyeen in tirada xildhibaanada mucaaradka oo markaasi baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka hore soo yaraatay 15 xildhibaan oo laga mamnuucay 5 kulan oo socod marka laga reebo waxa muuqata ama cad in xildhibaanada soo hara ay yihiin xildhibaanada badan ku fikira dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka aan helayo oo soo taraya ayaa waxay sheegayaan in ajandihii loo ballamay baarlamaanka la horkeeni doono isla markaasina cod la gelin doono waxay mucaaradku markaasi ay leeyihiin waxaa la wadaa qorshe ah muddo kordhin madaxweyne Farmaajo loo sameynayo laakiin warar ka madax banaan mucaaradka oo ilaa hadda xaqiijinaya arrintaas ma jiraan sidoo kale waxaa xusid mudan in maanta ay shireen midowga madaxda maamul goboleedka dowladda federaalka Soomaaliya iyo ay maxaa la beesha caalamka oo maanta ay soo fadhiiseen shirkan waxa uu ka dhacay hotelka airport fuyo loo yaqaano ee ku yaala xerada xalana gudaheeda waxaa ka qayb galay midowga ama qaramada midoobay wakiil ku qabin Soomaaliya James Swan sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ambassador Francisco Mediera oo ah inka midowga AMISOM ama ciidamada AMISOM ugu weyn sidoo kale waxaa joogay safiiro kale iyo saaxiibo kale oo danaya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaa xusid mudan in shirkani uu markaasi afkarad hordhaca laga gaaray anisa aad baan kusoo dhaweynaya walaashay waa maasan tahay waxaa muuqata in afkarad hordhaca laga gaaray shirkii maanta markaasina ay u eg tahay in maalinta waxaa rajadu ahayd maanta ama gelinkii dambe maanta in Ra'iisul Wasaare Roble shirkaasi ka soo qayb galo maysan suurtoobin laakiin waxaa la rajeynayaa maalinta berrito ah madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay shirkaasi qayb galaan sida muuqata waxaa soo baxaya warar hordhaca oo sheegay in isfahan laga gaaray khilaafaadkii doorashada isla markaasina doorasho loo dareeri doono warar hoose oo si hoose ku helay ayaa sheegaya in ugu yaraan muddo 1 sano ah loogu dari doono madaxweyne Farmaajo si doorasho dalka uu aado hadda qorshihii doorashada ma diyaarsana isla markaasina ma diyaarsana ergooyinkii la soo ururin lahaa weli lama soo xulin oo lama soo diyaarinin sidoo kale goobihii doorashada ka dhici lahayd weli la iskuma waafaqin ma laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa oo maamul goboleedkeeba laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa mise hal meel ayay ka dhacaysaa maamul goboleedkeeba weli heshiis lagama gaarin heshiiskii 17 September ay kala saxiixdeen saamilada siyaasadda Soomaaliya weli laguma heshiin sidii loo wada meel marin lahaa waa qodobada weli miiska saaran haddii madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ay bariish ka qayb galaan waxaa muuqata rajo ah in marka la isaga soo dhawaan doono halkii hore kala joogay dabcan dadaaladaasi oo dhan waxaa gadaal ka riixayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo isagu dadaal fara badan ku bixiyay sidii la isugu soo dhawaan lahaa waxaan ognahay isbuuc ka hor waxaa la kala joogay meel aad u kala fog madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland waxay joogeen meel aad uga fog hadda meesha ay joogaan Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble waxay joogeen meel aad uga fog meesha hadda ay joogaan waxaa muuqata isu soo dhawaasho siyaasadeed in la isaga soo dhawaanayo halkii horey marka hore loo kala fogaa fadlan muuqaalka sii share garay asxaabta kale sii gaarsii channelka YouTube-ka ayaan qaybta kore ku dhigana subscribe saar aad baad u mahadsan tahay sidoo kale haddii aan markuu ku sameeyna maanta shirarkii dhacay madaxweynayaasha dowlad-goboleedyada dalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay markaas ku kulmeen hotelka ku yaala xerada xalana gudaheeda kulanka waxa markaas goobjoog ka ahaa wakiilada beesha caalamka sida uu sheegay Donald Yamamoto safiirka Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midowga Afrika ninka u qaabilsan Soomaaliya ama ciidamada AMISOM ninka ugu sarreeya laga yaqaan Francisco Mediera sidoo kale waxaa jooga saaxiibo kale oo siyaasadeed ama saaxiibo kale oo danaya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya qodobka muhiimka ah ayaa waxa uu yahay markaas in la isku afkartay in madaxweyne Farmaajo shirka ka soo qayb galo Ra'iisul Wasaare yimaado gudoomiyaha gobolka Banaadirna uu ka soo qayb galo weli waxaan cadeyn in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo midowga musharaxiinta dhamaantood ay shirka qayb gali doonaan
weli la iskama soo dhawaanin, go-aan lagama gaarin. waxaan ka warsugi doonaa maalinta berita iyo wixii kasoo baxaa, indhaha ayaan ku haynaa, waan idin wadaagi doonaa qodobadaas iyo sida markaas la isugu heshiiyo. aad u mahadsantihiin dhammaantiin saaxiibada ku jira barnaamijka, fadlan sii share gareeya. sidoo kale markan waxaan eegi doonaa marinka Gaza ama kanaalka Suez loo yaqaano, oo markaasi labada maalin lasoo dhaafay go'naa uu ku gudbanaa markab shixnado markaasi shiday oo maanta furmay. markabkan weyn oo markaasi container fara badan wadaya waxa uu ku xirnaa kanaalka Suez loo yaqaano muddo 7 ah ama 7 ku dhow, waxaana markaas dhererkiisu markabkan lagu sheegay. markabkan waxaa iska shaqada lagu magacaabo Evergreen, waxaana ka diwagashada dalkaasi Taiwan. markabkan waxaa markaasi uu gaaraya dhererkiisa 400 oo mitir amaba 1300 oo feet, hadba sidaa u taqaanid, iyo dhererkiisu gaarayay. waxa uu ku gudbanaa kanaalka Suez. kanaalka Suez dalka Masar ayuu ku yaalaa. dabcan dowladda Masar ayaa canshuur ka qaadsada maraakiibta marta, waana marin muhiim u ah dabcan isu socodka dhinaca maraakiibta markay timaado. dhaqaale fara badan ay kasoo geli jirta dalka Masar. waxaa xanibaadii ku timid muddo isbuuc ama 7 ku dhow. markabkan waxaa maanta lagu guuleystay ugu dambeyn in laga furo ama laga musaafiriyo ama laga wareejiyo halkii uu ku go'naa. dabcan waana fikir amaba qorshe aad ay usoo dhaweeyeen dadka ama ganacsatada aadka u isticmaasha dalkaasi ama marinkaasi. haddii markaasi xayrada ay sii saarnaan lahayd, xataa saameyn waxaa ku yeelan lahaa dalka Soomaaliya, waayo shixnadaha qaarkood ayaa halkaasi soo mara, maraakiibta imaanaysa Soomaaliya qaarkood ayaa halkaasi soo mara. aad u mahadsantihiin, fadlan sii share gareeya muuqaalka asxaabta kale sii gaarsii. Anisa aad baan ku salaamaya walaashay, boqorada soo dhawaada dhammaantiinba. fadlan muuqaalka sii gudbiya, fikradihiina waan soo qaadan doonaa dhawaan inta muhiimka ah. waa tahay, aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. waa hagaag. waa tahay aad baa u mahadsantahay, waad kugu celin doonaa. calaamadaha covid-ka noogu cel ayuu leeyahay. calaamadaha noocan cusub ee coronaviruska lagu garan karo waxa ay kala yihiin: 1 waa daal, 2 murqa xanuun, lafa xanuun, labo, iyo sidoo kale cuntada ama appetite-ka oo kaa xirma. waa calaamadaha cusub ee lagu garan karo nooca cusub ee coronaviruska. waa nuuc markaa ku cusub ama ka duwan kii hore. nuucani ma laha neef qabad oo qofka neefta kuma dhigayso. ma lahan waxa loo yaqaano dadka da'yarka ah inta badan kuma dhaco. waxa uu inta badan dadka da'da weyn inta badan kuma dhaco, waxa uu ku dhacaya dadka da'da yarka ah. sidoo kale waxaa xusid mudan talaalka la bilaabay ee cudurka covid-19 ama coronaviruska in marka hore priority-ga la siiyo ama dadka loogu talagalay inay qaataan ay tahay dadka da'da ah 50 sano wixii ka sarreeya. magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya guud ahaan waxaan arkaynay in ay inta badan qaadanayeen dhalinyarada da'dooda ka hooseysa 30 sano, hadday noqon lahayd wariyaasha, hadday noqon lahayd dadka dowladda u shaqeeya, iyo dadka activistiyaasha ama dadka u dhaqdhaqaaqa ama dadka facebookyada meelaha ka hadla. waxa ay tahay arrintaas ay ka hormaanaysaa guideline-kii ay soo jeedisay hadda WHO oo loogu talagalay talaalkan in marka hore xoogga la saaro dadka frontline workers loo yaqaan, ama dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo cisbitaalada ka shaqeeya, dadka da'da ah iyo dadka xanuunada kale qaba. waxaa mudan dalka Soomaaliya inaysan ku baraarugin arrintaasi oo ay qaadanayaan dhalinyaro aad u fara badan. haddaan intaas kaga nimaadno, markana haddii aad tahay wariye amaba aad tahay YouTuber ama dadka Facebook wax ku qora oo ku nool dalkan Kenya, waxaa aad wajahi doontaa caqabad ah xarig 2 sano ah ama ganaax markaasi 1 milyan ama $10,000 ah oo markaasi dowladda Kenya ku ganaaxi doonto. sababtu waxa ay tahay haddii aad qortid amaba aad baahisid war aan xaqiiqo ahayn ama been abuura, ama aad qof ugu gudbaysid, qofkaasina uu kugu dacweeyo, waxaad wajihi kartaa 2 sano xariga ama 1 milyan oo lacagta shilinka dalkan Kenya oo u dhiganta $10,000. haddaba waa muhiim qodobada dhawaan ayaan hoos kusoo qori doonaa, qodobada la iska rabo ama laga fiirinayo qofka wariyaha ah ama qofka YouTuberka ama qofka wax ku qora Facebooka oo qoro war aan la hubin ama xaqiiqo ahayn, amaba qof aad dacweysay ama war ka sheegtay uu kugu dacweeyo, waxaad wajihi kartaa ganaaxyada noocaasi ah. haddaba waa muhiim inaad ka fogaatid. faahfaahintan waxaan kusoo qori doonaa qaybta hoose haddii Allah uu dirgalado marka barnaamijkan tooska inoo dhammaado. fadlan sii share garee muuqaalka oo asxaabta kale sii gaarsii. waan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin waqtigiina iyo daawashadiinaba. waxaa xusid mudan su'aalo inta badan igu soo laabtay: ma ihi mucaarad, mana ihi muxaafid, waxaan ahay wariye markaasi ka shaqeeya arrimaha baaritaanka ama investigative journalist waxa loo yaqaano. xogaha aan idinla wadaago waa xoga aan inta badan soo baaray oo aan dad badan ka wareystay labada dhinac, hadday noqon lahayd mucaaradka iyo muxaafidka intaba, anigoo aan soo xaqiijinna bulshada uma soo gudbiyo. sidaa darteed marka waa muhiim inaan kala cadaato: ma ihi mucaarad, mana ihi muxaafid, waxaan ahay wariye dhexdhexaad ah
bulshada oo dhanna u dhaxeeya aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Nabadgelyo nolol kulante iyo amaana Allah.